oo maalintii Xunayn muslimiintu aaday u badnaayeen mararkay ugu badnaayeen ay kamid ahayd inkastoo aysan ahayn ciidankii ugu badnaayo nabiga raaca Xunayn waxay dhacday sanadii 8 oo hijriyada sanadii 8 waa sanadii Makka la furtay bisha Ramadaan gudihiisa la furtay Makka bisha Shawaal oo ka dambayda Ramadaanka markii Makka la furtay arrimaheedina isku aadeen oo reer Makka way isdhiibeen markii gacanta lagu dhigayna nabigu sallallahu alayhi wasallam way iska afiyay marka laga reebo shakhsiyaad dambiilayaalaha gaar ah waana islaameen badankoodii kadib arrimaheedii iyo maamulkeedii la habeeyay bishii Shawaal markii la maraa ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa soo gaaray qabaa'il isbahaystay oo duulaan ku soo sababtoo ah Makka furashadeedu arrin lama filaan ay carabta ku noqoto carabtii qabaa'ilkii waaweynaa marna kuma fakarayn in Makka nabigu gacanta ku dhigaa sallallahu alayhi wasallam markii la yiri Makku la wareegay qabaa'ilkii waaweynaa ee Quraysh ka soo haray Hawaazin nimankii la dhigi jiray iyo Thaqiif iyo huwan ama isbahaysi ay lahaayeen oo aad qabaa'il badan oo yaryar ahaa ayaa tashaday waxayna go'aan ku gaareen inuu meeshiisa ay ugu yimaadaan nabiga sallallahu alayhi wasallam mar dambeeyaan meel lagu sugayna meeshiisa loogu tagay nabigu waa maqlay sallallahu alayhi wasallam ciidankaas marka aad u badnaa oo gaalada dawaa qabaa'il aan gabar iyo wiil midna ka soo taganay ahay waxa hogaaminayay amiirkoodii Malik ibn Auf an-Nadri Malik ibn Auf an-Nadri ayaa hogaaminayay nin dhalinyaro ah markaas wuxuu amray hal shay laga soo teeko hal shay waa in xoolaha la soo wada caruurtana la soo wada dumarka la soo wada hal shay laga tagay waxa la sameeyay yiri qabiil walba aaga ay ka dagaalamayaan dhabarkooda la taaga xoolaha dumarka caruurta dad cararto halkaad u socotaa xaka dambeey wax alla waxaad leeyahay la wareegay caruurtii dumarkii xoolihii halkaad aaday marka darbiyada aaday iyo buura wax ku dambeeya male marka imma geeri wa imma gul saas ugu talagalay la soo wad ciidankaas marka hadee tiro aad u weyn yahay nabigu markuu maqlay sallallahu alayhi wasallam 10,000 oo ciidan oo Makka ku furtay oo ansaar iyo muhaajiriin iyo qabaa'il Madiina dariskeeda ahaa muslimiin iyo 2,000 oo dadkii Makka markii la furtay islaamay mar dhowba islaamay intaasu la soo aaday nabigu sallallahu alayhi wasallam iidankii si loo socday labada ogee ilaa nimankii meesha Makka agteeda baan maray soo maray meel waadi ah oo u dhaxayda Makka iyo Daa'if Xunayntu waa meeshaas waa waadi Makka iyo Daa'if u dhaxay halkaas ay ila soo galeen intaysan marka soo gaarin meeshaas meel leeyra Awdaas ay degeen markay degeena oday waxa hadlay la dhigi jiray Durayd ibn Sima oo nin daa oo indhabeelay gees caana ahaa jiray nimanka gaalada u duulaanka oo la socdo kamidi wiil dhalinyaraha ciidanka hogaanka u haya Malik ibn Auf an-Nadr odagu haduu dhacay markaasuu yiri meeshan deganahay waa halkee markaas aan yiri waa waadi Awdaas waa goobtii farda loogu talagalay inay ka dagaalamaan bacaad maahan iyo ruub agta hoos u galay dhagax qoobka ka dilayna maahan meel fiican degana markaasuu yiri waa maxay waxa aan maqlay cabaadka geela iyo cida ariga
iyo dumarka hadla iyo caruurta booyayda xayhi markaas la yiri Malik ibn Auf gaamiyaha wuxuu amray inaan waxba laga soo tagin waxba inaan laga soo tagin waa la wadaa wixii dadku lahaayeen dad iyo duuyo wuxuuna yiri qabiilka sadamarkiisa la taaga si aysan u cararin markaas yiri raaci dhan ida jiri iduu ilaali jiray maragu hogaami jiray waa ida ilaali ما يرد المنهزم شيء ورنين عرري وحريه لما اركو نين mar haduu jabo al jabay islaana meeshan taagan ee ariya degan ee arur midna ma xiriyo nin haduu jabo doqona taay nacas idaha inaad ilaaliday ee rag inaad hogaamido ma ahayn oo yiri hadii la guuleysto oo cadawga jabido nin iyo seefa ku anfacay cadawga ceybsada hadii lagu jabiyana waxba ku baaqi noqon laha ceebtaadi aad keentay goobta waxaan tali jirina taliyay saas uu ku yiri aad qowda iska fariiso ma ogeed sidaas ay ku soo dageen Hunayn nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ciidankii iska socod oo la moodo cadawgiiba inaan la gaarin salaada soo markay dhalanaydo ila lowga tahay iftiinki iyo mugdigi isku jireen ay hal marroobka uga dhigeen fallaan niman aad u shiish badan oo ahay muslimiintii roob aan looga dhigay fallaan iyo seef iyo war haddana sidii hal nin ay hal mar u soo duuday la ismaba hubsan 12 kun waxa ka soo haray 100 qof ama 8 waa la carab muslimiinta qof walba jihadiis ruuxa boqol nin oo nabigu kamid ah soo haray sallallahu alayhi wasallam ya Abu Bakar iyo Umar markaas nabigu inta jeedal ka saaray daabadiisi uu cadawgii weerar ku qaaday hada waa boqol bis asagoo waliba dhuumanayn ee qayliyaya oo la ana nabiyyu la kadib ana ibn Abdul Muttalib anu nabiyana hay been alim ma ihi من لو قوة يرمه إلى عبد المطلب أنا مركز كدبيري أين يا عباد الله إلي يا عباد الله إلي أنا رسول الله الضوء إلهي عررك وعرر الله الله صلى الله تحقيق سؤال رسولك الله نحي نبي واحد كل دقي واحد سيرادين وابلغ لي ده دابدبه مركز نبي صلى الله بقاو صارناي عباس iyo ninka la dhigi Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ay ku dhageen nabigi inay u galo cadawayba ka cabsadeen war meelaha geesinimada aqli ka baxa ee banu aadanka kale aysan awoodin oo nabigu ku muujiye geesinimo aan wax la soo garab dhigay jirin waa celinayaan si aysan cadawgu la galin nabigu Abbas wuxuu ku yiri Abbas oo rag ballan naga dhixeeyay jireen ada cod dheer waxa tira ya ashaab ash-shajara ya ashaab ash-shajara saas dhawi shajaradu waa geedi bay'atu ridwan nabigu uu kula galay saxaabada 1400 oo saxaabi uu ballan kula galay inaysan cararin ragan ballan lahayna jiray iigu dhawaaq كلمات دي مركو عباس كو دواقay hal mar ay soo rogmadi hatta fardihi wa arareen soma inay eliyaan isku dayan ki celi waa inta faraska iska daay ha arareen oo ka boodo isagoo kaligiisa soo laaban markay xoogaa isku la yimaadeen nabigu yiri ilaahay u rur sheega qalbigiina ilaahay u rur sheega sacab ciidan inta qaadu gaaladii ku tuur hal mar indhaha ka gashay mid walba indhihiisa intuu ciidda ka bixinaya seef madax looga jiro 6,000 oo caruur iyo dumar laga qabsan maalkii oo dhan wala la wari odagii taladiisii la diiday waa la eed dhalinyaro weliga oday khabiir oo ka da'weyn waxa laga hadlaa mar haday aqli ku saabsantay wuxuu aday mas'alad diiniya tahay mas'alada la fiiriyo sideeda wuxuu aday mas'alad tahay waxa la yiraahdaa kitaabka nooga fiiriyo
لكن عقل مركي تحي قفك كاد دأدا وين لغا دنبي خبير كان waa la tixgeliye ya arinta khibrad u laha leeyahay laakiin waa duqowday maskaxdaad waa gubatay naga fariiso waxay leedahay maatada oo la gacan galiyo iyo cadow la isku dhiibo 6,000 oo caruurta iyo dumarka gacanta lagu dhigo ka war oo maxaabiis waa 6,000 dhammaan waxay hanti lahayeen waa la qabtay raggiina wixii dhintay maana wixii kale waa farxadeen taladii waxay u dhamaatay sidii durayd musima hal nin masugin ma dhin hooyada iyo meesha taag nin jabay moogta tala ma hayo nin jabay wax jira ma khalaas wixii markii gacanta lagu dhigay waxa dhacday dib 20 maalin kadib ayagoo islaamay inay yimaadeen wixii ragii carab markaas ilaa rasuulka Allah waa soo islaamay ee waxana la ku caymiyo xoolaha iyo dadka dad iyo duuyo midna naguma harin dad iyo duuyo wax lagu haray lama arko rag iska bayhoof oo iska socdo qabiil dhan oo wax kale lahayn hal riib male ka waran taladan yara ma u jeedo meeshaas ay ku dambayda marka waxana la ku caymiyo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam laba kala doorto xoolihi in la siiyo iyo dadkii in la siiyo labada mid doorto illa dadkii dagaalamay lama qadi karo in wax la siiyo ilaahana siiyo waxa qayban in kaga bariya oo in kaga qaada iyaga iska leh xoolaha adoomadana iyaga leh dumarkan iyaga leh caruurta iyaga leh xoolahan iyaga leh ama xoolaha doorta ama dadka war dadkana la siiyo xoola ilaaha si doonay خلاص نبي وحو انت الله الله يري ولاليه ويه وانا سو اسلامين سيدتكم لخدي كنا لسي حولهن ولا قيب ايغا لتكود حولي قيبه لو علش حولي قيبه لو علشي ما دام اي سو اسلامين ولكن سيسمو هبل انت سي ماهن اريغا اري مليد اريغي وا لو وقت مجاهدين اسكله لما اركو ادا غوبتا كين marka خلاص saasa lagu kala baxay sababtu waxay ahayd ay saxaabadu markii kubaad u carareen waxay ahayd markii 12,000 ay arkeen ay waxay yiraahdeen lan nuqlab al-yawma min qilla wala maanta yaraan la kaga adkaan tira badana kelimadaas adishay وعلى الرباء إن إلهي الله تلا صار أن تراد الله تلا صار كلمة داسة شبيدي هذا هو كلمة داسة بسكوا وعلى الرباء أسباب تلا إمو احرص على ما ينفعك لكن واستعن بالله الله تلا صار لما دا صار لك الرباء أسباب تلا إمو لكن أسباب تلا صار إلهي تلا صار هايسكو علينا أسباب إلهي تلا صار